السلام عليكم soo dhawaada asxaabta Ramadaan Mubaarak Allah naga aqbalo acmaasha wanaagsan waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah intaan ku guda jirno bisha Ramadaan oo aan ku soo qaadanayno mowduucyo kala duwan waxa qoray barnaamijka saaxiibkay Ustaad Mustaf Yusuf haddaba like saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada marka aan soo dhigo aynu bilowno caafimaadka waa wax qaali ah oo qof kasta oo dunida ku nool uu ku taamayo inuu helo shuruud la'aan waxa cuntada aan u cunno waa sida caafimaadkeenu uu ku sii jiri lahaa waxa aan jirdhiska u sameeyno waa in caafimaadkeenu uu taam noo sii ahaado waxa aan u hurudno waa inaan caafimaad helno qofka marka uu xanuunsado waxa uu dhakhtarka ugu sii cararo oo horay uu daawo uga raadsado waa in caafimaadkiisu uusan khatar gelin habeen iyo maalin waxaan jecelnahay inaan ka warqabno caafimaadka jirkeena iyo maskaxdeena waliba waxaan isku dardaarminaa inaan ka hortagno cudur walba inta uusan ugu dhicin ka hor oo dhaqaatiirtu waxay yiraahdaan ka hortagga ayaa ka wanaagsan isdaweynta xanuunka xilliyadii dambe dunida ku faafay markii uu yimid dawlad walba waxay xiratay xuduudeeda waxay hakad gelisay duulimaadyadii waxay amar ku bixisay muwaadiniinteeda dalka gudihiisa ku sugan inaysan bixin kuwa dibadda ku maqana in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku yimaadaan arrinku intaasi kuma ekaan ee waxaa la xiray goobihii isku imaatinka dadka oo ay ku jireen goobihii alla lagu caabudayay dadkoo idil waxaa amar lagu wada siiyey inaysan guryahooda ka soo bixin dan laga marmaan ah inay qabsato mooyee waxaa kale oo dadka la amray inay kala fogaadaan ugu yaraan hal tallaabo waxaa kale oo la faray inay afka saabtaan talooyin badan oo caafimaad ahna waa la siiyey dadka intaa oo idilna waxaa loo sameeyey in badbaadadooda laga shaqeeyo caafimaadkoodana laga taxadaro xubin jirkaaga ka mid ah haddii ay xanuunsato habeenkaa ma seexanaysid ciddida ayaa ugu yar haddii lagaa qabto taah ma daynaysid iska daa haddii aad ka xanuunsato il lug iyo gacan wadnaha haddii lagaa qabtana kuma sii jirto oo noloshaadoo idil ayaa halis galaysa adigoo dhanna waxaad noqonaysaa konton micnaha qof u dhaxeeyay nolol iyo geeri neefta haddii ay kugu dhagto iyadana waaba lagaa quusanayaa halkii xubin oo jirkaaga ka mida waxaa ku dhici kara boqolaal xanuun ama wax ka sii badan dunida aynu maanta ku sugannahay markii cudurrada jira loo taag waayey waxay samaysteen hay'ad caafimaadka u xil saaran oo ay u bixiyeen hay'adda caafimaadka adduunka dawlad walba waxa ay leedahay wasaarad lagu magacaabo wasaaradda caafimaadka isbitaal walba waxa uu leeyahay qalabyo kala gedisan oo lagu ogaado caafimaadka qofka haddii ay jiraan wax halis ah oo soo wajahaya iyo haddii kale qof kasta marka uu ka shakiyo caafimaadkiisa waxa uu si dhaqsi ah ku aadaa goobta uu isleeyahay caafimaad waad ka heli kartaa waxaana laga yaabaa inteena badan inaan garanayno dad badan oo caafimaad inta ay dibadda u raadsadeen qaar badan oo iyaga ka mid ah halkaa ku soo dhinteen qaarna ay ku soo hungoobeen oo iyaga oo wax laga qaban waayey iska soo laabtay inkastoo intooda badan ay ku soo caafimaadaan nebi ayuub wuxuu ahaa nebi alle uu soo diray wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala siiyey hantida nuucyadeeda kala gedisan maal xoolo dhul iyo addoommo intaba in muddo ah markii uu nabdoonaa alle ayaa maagay inuu imtixaano nebigiisa ayuub oo waxaa ku dhacay cudur jirkiisa oo idil galay kaa oo dadka qaar ay ku sheegeen inuu ahaa furuq ama wax la mid ah carabka iyo qalbiga oo keliya ayaa u fiyoobaa oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku xusi jiray ugu dambayntiina carabkii ayuu ka xanuunsaday dadkii oo idilna way ka kala carareen iyagoo ka baqayay inuu cudurka u soo gudbiyo waxaa ku haray oo keliya xaaskiisii oo caawinaysay waxaa intaasi u sii dheereed in awlaaddiisii oo idil ay ka wada dhinteen nebi ayuub waa uu ku samray imtixaanka oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku imtixaanay wuxuuna ogaaday cudurkan cidda u keentay kana qaadi karta inuu yahay allah subxaanahu wa tacaala oo keliya ugu dambayntiina alle ayuu baryey oo uu gargaarsaday alle ayaana ka dulqaaday imtixaankii oo inoo sheegay inuu ku guulaystay tijaabadii ehelkiisana wuu u soo celiyey darajo aad u sarraysana wuu u dallacsiiyey dadka caafimaadka ka shaqeeya haddii aad la sheekaysato waad yaabaysaa nin dhakhtar ah oo aan saaxiibanahay ayaa ii sheekeeyey waxa uu igu yidhi maalin waxaa ii yimid nin dhallinyaro ah wuxuu iga codsaday inaan u raaco gurigiisa oo aan u soo diro qof bukaan ah oo aan dibadda loo soo saari karin ninkii ayaan raacay misena waa nin jirkiisa oo idil ay ka soo baxeen nabro aad u tiro badan tin badanna ay ku taalay markii baan sakiin qaatay oo aan ka xiiray wixii tin ahaa ay ku yaalay gacmihiisa lugihiisa xabadkiisa iyo dhabarkiisa waxay ehelkiisa ii sheegeen in muddo ah inuu sidaa ahaa oo ay dhowr isbitaal geeyeen waxna ay ka qaban waayeen wuxuu igu yidhi alle ayaan u tala saartay oo aan u baryey xanuunkiisa ayaan ehelkiisa ka wareystay kadibna isaga ayaan wareystay wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala i waafajiyey inaan u helo dawo munaasib u ah
ugu dambeynna waan ku guulaystay. Allena caafimaad ayuu siiyey ninkii. Xarunteeda ayuuna igu soo booqan jiray, wuxuuna ii sheegay ayuu igu yidhi in gobol laga keenay oo dhaqaatiir badan ay wax ka qaban waayeen, xanuunkiisana ay garan waayeen. Haddaba daawade, weligaa korkaaga ma xoqon weysay? Weligaa lugahaaga ma ku socon weysay? Weligaa gacmahaaga wax ma ku cuni weysay? Weligaa cagahaaga ma ku aadi weysay halkii aad doonaysay? Weli ma is aragtay adiga oo gaari inta uu hoon kuu yeeriyey aad maqli weysay? Dadkii waddada marayay garabka inta kaa qabteen waddada ma kaa leexiyeen? Dhagahaagoo cuslaaday ama adigoo maqalka beelay aawadeed? Weli adigoo danahaaga u baxaya ma weysay cid ku garab qabata oo meeshii aad rabtay ku geysa, adigoo aragga wax ka arki waayey darteed? Maxaan caafimaad qabnaa? Maxaan naxariis Rabbi haysannaa? Maxaan deeq Alle ku naaloonaynaa? Maxaa Rabbi gallad uu noo galay? Weli nicmada caafimaadka Rabbi ma kaga shukrisay oo ma tiri, Rabbiyow adiga ayaa i siiyey nicmadan ee Rabbiyow ii siyaadii deeqdaada? Allow inta aan caafimaad qabay ayaa ka badan inta ay dhibaato i taabatay. Allow wixii gaabis ama gabadfal ah oo aan la imid iga cafi oo ii dhaaf. Weli wax ma tarnay dadka ay jirrada dilootay? Weli isbitaalada ma soo booqatay adigoon dad gooniya u socon, balse doonaya inaad bukaanada muslimiinta ee sanadaha badan sariirta saaran aad niyadda u soo dhistid? Weli adigoo soo booqanaya bukaan ehel ama saaxiib kula ah, markii aad salaantay oo aad xaalkiisa ogaatay kadib, ma u tagtay bukaanada kale ee qolalka kale ku jira mana u ducaysay? Nicmooyinka caafimaad ee aan wada haysanno oo idil xag Alle ayay ka ahaadeen, ee aan Alle ku shukrinno ugana mahad celinno, khalqigiisana u ixsaan sameyno. Waad ku mahadsantahay daawashada. La wadaag asxaabtaada adigoo ugu sheer garaynaya baraha isticmaasho.